بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada barnaamijkan aan idinku haynana waxa kamid ah militariga Israa'iil oo qirtay in ay ku fashilmeen ka hortagga iyo qabashada gantaanada Xuutiyiintu ay soo ridayaan ee ay ku weerarayaan goobaha xasaasiga ee ku yaala gudaha Israa'iil waxaana durbo bilowday baaritaan la xiriira amuurtan faahfaahin iyo falaqeyn ayaan idinkaga haynaa arrintan iyo saameynta ay ku yeelanayso gudaha Israa'iil oo duqeymihii ugu dambeeyay dhaawacyo ay ka dhasheen soo gaaray Israa'iiliyiinta waxaynu kula eegi doonaa Xamaas oo war culus ka soo saartay xadgudubyada Israa'iiliyiinta mayalka adag ay ku sameynayaan masaajidka Al-Aqsa dab ayaa lagu soo warramayaa inuu ka qaxmayo deegaano ku yaala gudaha Israa'iil iyadoo laga cabsi qabo dabkan in uu faafo wararkii ugu dambeeyay Qazana waynu eegi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinku haynaa wadahadalo xasaasi oo ay yeesheen wasiirada amuraha dibadda ee Ruushka iyo Iiraan maxaa laga wada hadlay waardii faahfaahin doonaa dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo wixii warah ee soo kordhay intaaynu hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijkan wararka caawa falaqaynta ayaan sidoo kale xagga barnaamijka xaggiisa dambe idinku soo gudbinaynaa maxamed Cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed inoogu bilo wararka kuwooda ugu waaweyn wargeyska la yiraahdo Yadood Axrinood ayaa ku waramaya in ciidanka cirka Israa'iil ay baaritaan ku hayaan sababaha keenay in gantaal ay Xuutiyiinka soo rideen loogu guuldareystay in laga hortago kadib markii qaybo kamid ah ay ku qarxeen guri ku yaala bartamaha Israa'iil maalintii Jimcihii wargeyska ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in ciidamada Israa'iil ay baaritaan ku wadaan in gantaaladan ay soo ridayaan Yamaniyiintu ay ka kooban yihiin bambooyin laba qarxa ama qaraxyooda ay badan yihiin kooxo dabdamiyeyaal ah ayaa la dagaalamaya dagaal dab ballaaran oo qabsaday bartamaha magaalada xeebta Netanya ee Israa'iil kadib markii dabku uu ku baahay si dhaqso ugu baahay goobo kayna oo aad u qalan dabdamiyeyaasha ayaa kaashanaya diyaarado lagu shubay biyo iyo kiimikooyin oo lagu daminayo dabkaasi waxaana muuqata in ay ka shaqeynayaan dadka dabdamiska sidii loo xakameyn lahaa dabkaasi loona damin lahaa xukuumadda ayaanan weli wax wara ka soo saarin cidda ku dhaawacantay iyo waxyeelada soo gaartay hantida dadweynaha fasaahati dadka deegaankaasi ee ka agdhow ayaa waxa ay laga dalbaday in ay isdejiyaan taxadaraan iyadoo dadaalada dabdamiska u socdo sababaha dabkaasi dhaliyay ayaa weli baaritaan lagu wadaa kooxaha ka shaqeeya gudniga degdega ayaa weli waxay diyaar u yihiin kooxo kale oo dabdamiyeyaal ah in laga hortago in dabkaasi uu gaaro deegaanada ay dadku ku badan yihiin saraakiisha dabdamiska ayaa sheegaya in howlgalkani uu socon doono ilaa iyo xaaladda lagu xakameyn doono dabkan ballaaran ee ka kacay deegaanada ku xareereysan Netanya ururka Xamaas ayaa bayaan soo saaray uu ku baaqayo in masjidka Al-Aqsa iyo deegaanada ku xeeran oo uu ku tilmaamay inay xadgudub ku sameynayaan isu soo taraya dadka Israa'iiliyiinta ee deegaanada looga sameeyay iyo xadgudubyo kale ururka Xamaas ayaa digniin ku bixinaya in arrintaasi tahay mid aad u guracan xaaladda jirtana ka jirta magaalada Gaza iyo masjidkaba ay tahay mid ay ka dhalan karto cawaaqib falal argagixiso iyo falal gardarro ah iyo xadgudub ururka Xamaas ayaa ugu baaqay dalalka Carabta iyo ummadda muslimiinta in ay mas'uuliyadooda gutaan oo qibladii ugu horeysay ee labada qiblo ee muslimka iyo xarunta saddexaad ee masaajidada muslimka ugu muhiimsan in laga hor istaago xadgudubyo lagu geysanayo bayaankan ayaa lagu dalbaday in la dardargeliyo dadaalada looga hortegayo xadgudubyada dadka deegaanada Israa'iil u sameysay ay geysanayaan iyo in la taageero adkeysiga dadka Falastiiniyiinta ee ku nool Qudus iyo agagaarkeeda si kastoo loo taageeri karayo hay-adda samafalka Oxfam afhayeen u hadlay oo ku sugan Gaza Chris McIntosh ayaa warbaahinta u sheegay
in marinka Gaza ay macluuli ka jirto. ururka sidoo kale kooxihiisa dhulka ka shaqeynaya ayaa indhahooda ku arkay, wuxuuna hoosta ka xariiqay in xataa haddii la furo buu leeyahay oo cunaqabataynta laga qaado, macluushaasi saameynteeda inay marinka Gaza kasii jiri doonto. laakiin wax hadda gargaarkii lagu soo furaya ma muuqdaan. Macintosh ayaa sheegaya in uu filayo in masiibo xoog leh ay ka dhici doonto marinka Gaza, siina xumaanayso, waxaana la shaqeynaya uu yiri hay'adaha qaramada midoobay iyo baahiyada ay qabaan ee la xiriirta marinka Gaza. dowladda Mareykanka ayaa ogsooneyd in Israa'iil ay qorsheynaysay in dagaal joogto ah lagu qaadi doono Falastiiniyiinta muddo dheer oo tobanaano sano ah, marka laga gudbo in ay ka qayb qaadanayso wada hadallada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojinta marinka Gaza. saana waxaa sheegay sarkaal hore oga tirsanaan jiray saraakiisha Mareykanka oo ka tirsanaa maamulkii Biden. ninkan oo afhayeen u ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo la yiraahdo Matthew Miller ayaa u sheegay warbaahinta Israa'iil qaar ka mid ah in xogayihii hore ee arrimaha dibadda Antony Blinken uu digniin ku siiyey dagaalka Israa'iil mar uu la kulmay golahooda wasiirada horaantii dagaalka, in waddanka Israa'iil uu khatar ku sugan yahay dagaal mar dhammaata ah haddii aanan qorshe cad loo haynin mustaqbalka marinka Gaza. janaalka 13aad ayaa sheegay Netanyahu iyo wasiiradiisa xag jirka oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga qaranka Ben Gvir iyo wasiirka maaliyadda Smotrich in ay hor istaageen muddo ka badan 5 goor heshiis maxaabiist lagula bedelan lahaa ururka Xamaas. Israa'iil ayaa ku gacan seertay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Tom Bragg hindise uu soo jeediyay lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan kadib markuu Bragg la kulmay wasiirka arrimaha istiraatiijiyadda Israa'iil Ron Dermer, waxayna ku kulmeen magaalada Paris ee caasimad u ah waddanka Faransiiska. sida laga soo xiganayo warbaahinta waddanka Lubnaan, Israa'iil ayaa ogolaatay oo keliya qaar ka mid ah hindisayaasha, waxayna ku gacan seertay qaar kale, taasoo macnaheedu yahay in heshiiska oo dhan uu yahay mid waxba kama jiraan. Israa'iil ayaa sheegtay in heshiiskaasi mabda ahaan in tartiib ay u joojiso waxa ay ku sheegtay duqeynta iyo khaarijinta siyaasadeed, hase ahaatee in ay ciidankeeda kala baxdo goobaha muhiimka ee koonfurta Lubnaan iyo in lasoo afjaro arrinta maxaabiista inay ka gaabsatay. hase ahaatee waxa ay shuruudo ku soo rogtay in la burburiyo tuulooyinka ku dhow xuduudka ay yihiin kuwa aan loo ogolayn inay dad kusii noolaadaan, taasoo noqonaysa bay yidhahdeen goobo warshado laga dhisayo oo lagu kala qaybinayo waddanka Lubnaan iyo Israa'iil. hadafka ayaa waxaa looga gol leeyahay sida lagu abuuri lahaa deegaan ka caagan inay dad degaan oo laga dhiso oo keliya warshado Lubnaan laga leeyahay, hase ahaatee aanan loo ogolayn wax rayid ah. wararka caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi iyo dhigiisa waddanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka dooday arrimaha la xiriira barnaamijka nukliyeerka ee waddanka Iiraan mar ay telefoonka wada hadlayeen. sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Maahir ee waddanka Iiraan, Araghchi iyo Lavrov ayaa aaraah kale isweydaarsaday la xiriira galka nukliyeerka ee waddanka Iiraan, gaar ahaan tillaabooyinka ay wadaan 3 waddan oo Yurubyaan oo raba inay cunaqabatayn caalami ah waddanka Iiraan kusoo rogaan, ayaga oo u meeldayaya qaanuunkii heshiiska lagu gaaray 2015 ee ahayd haddii Iiraan ay fulin weyso qodobadii lagu heshiiyey in ay cunaqabataynta soo celin doonaan. saddexdan waddan ee Yurubiyaanka ah ayaa lagu sheegay in ay ku guuldaraysteen inay gutaan waajibaadkii ka saarnaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015. waxa ayna iskaashi la leeyihiin dowladda Mareykanka oo weerar ku qaaday
agab nabadeed oo nuclear oo Iiraan ay leedahay kaasoo xadgudub ku ah qawaaniinta caalamiga ah ee tirsigiisu yahay 2231 sidaa daraaddeed ma haystaan sababo qaanuuni ah iyo mid akhlaaqiyeed oo ay dood uga keenaan in ay qaataan inay cunaqabateyn kusoo rogaan waddanka Iiraan ayagoo wada jira. heshiiskii lagu gaaray barnaamijka nuclearka ee loo yaqaano is-afgaradkii barnaamijka nuclearka wax looga qabtay ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in golaha ammaanka ee qaramada midoobay la geeyo markii heshiiskaasi ay wax ka meelmari waayaan. labada dhinac ayaa hadda waxa ay ka doodayaan arrintaasi wax laga yeelayo. waayahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed aan ku bilowna warkeena qodobka koowaad Israa'iil waxaa la leeyahay waxaa baaritaan lagu sameynayaa wararka ah in aan lagu guuleysan weerarkii Xuutigu shalay ay soo qaadeen ay ku qaadeen gudaha Israa'iil. arrintan dhowr mar warbaahinta gudaha way sheegtay laakiin militarigu ma aysan qiran waa la qirinay laakiin hadda maxaa xilligan ku soo beegay in la qirto in gantaaladaasi lagu fashilmay in laga hortago oo baaritaan la sameynayo. gantaalada Xuutiyiinta ay u adeegsanayaan in ay ku soo ridaan goobaha xasaasiga ah ee waddanka Israa'iil ayaa waxay yihiin gantaalo guuxooda ka dheereeya cid iska difaaci karta ma jirto. Israa'iil markasta waxay ku andacootaa inay gantaaladaasi ka hortagtay laakiin hadda sababaha la soo sheegay ayaa waxay tahay in uu magaaladii bartamaheeda kusoo dhacay oo waxyeelo geystay. waxyeeladii waa la qarinayaa. Xuutiyiintana waa ballan qaadeen inay marnaba joojin doonin duqeynta ka dhanka Israa'iil inta cunaqabateynta lagu hayo marinka Gaza oo baahida loo dilayo iyo inta dagaalka lagu wado. Israa'iil toddobaadkii hore ayay mar weerar ku qaaday dhowr goobood oo ka mid ah waddanka Yemen ilaa ay had deertaan Xuutiyiintu ma muuqato in la cabsi gelin karo isla markaasna ay joojinayaan hadafka ay ku dhagan yihiin. Israa'iil gudaheeda waxaa socda dadka cabsi xoog leh ayaa waxaa ka haysa gantaaladan. waxyeelada Israa'iil waa qaranaysaa laakiin gantaaladani meeshay ku dhacaan waxa ay ka dhigayaan burbur weyn ayay geysanayaan. hadda wararka soo baxaya ayaa waxaa ka mid ah gantaaladan inay la dhacayaan in dhowr dhuumood oo qarxaya ay ku xiran yihiin taasoo cabsida sii ballaarinaysa. waxaa iyadana la isku raacsan yahay in xirfadda Xuutiyiinta ee gantaalada guuxooda ka dheereeya sii ballaarinayso iyo agabka siday u kaashanayaan iyo hagistiisa iyo goobtay damcaan in ay la heli karaan marka laga gudbo in Israa'iil yareysanayso. waa gartay waa yahay haddii marka ay kordhiyaan weerarada sidee Israa'iil markaa dadka kalsooni ugu qabi karaan weerarka hadda ugu dambeeyay dad badan baa dhaawacmay iyagoo isbuuranaya waxaana la sheegayaa inay jirto niyad jab laga qabo nidaamyada difaaca iyadoo kii Mareykankana meesha uu yaal oo ah nidaamka difaaca liiraada THAAD. marka saameynta gudaha Israa'iil arrintan ay ku yeelan kartaa maxay noqonaysaa iyadoo mar horeba aynu ognahay diyaarado aad u fara badan inay joojiyeen duulimaadka ay ku tegi jireen garoonka diyaaradaha ee loo yaqiin Lod markii Falastiiniyiinta dhulkooda intaan lala wareegin laakiin iminka loo yaqaano Ben Gurion. wararka soo baxay oo dhan ayaa tilmaamaya kalsoonida shacabka Israa'iil ay ku qabaan xukuumadda Netanyahu iyo wasiiradiisa xag jirka inay sii burayso in mudaharaadyo waaweyn la abaabulayo oo ay horseed ka yihiin qoysaska dadka maxaabiista marinka Gaza looga haysto. intaa waxaa dheer ciidamada soo noqonaya iyo ciidamadii cabashadoodii ayaa badatay iyo dagaalka inay ku guuldareysanayaan iyo Netanyahu iyo wasiirada xag jirka ee la jira ku adkeysanaya in dagaalku uu sii socdo. waxaasoo dhan marka laga gudbo waxyaabaha soo baxaya ayaa waxay tahay in Israa'iil ay ka qarinayso dadka dhibka weyn ee gantaaladan ay geysanayaan. tan kale oo iyadana aanan meesha laga saari karin waxa weeye gantaalada lagu difaacayo gantaaladan ay Xuutiyiinta soo ridayaan ee nidaamka difaaca cirka waa qaali. waxa weeye lacagtooda ayaa aad u badan ama Mareykan ha sameeyo ama Israa'iil ha sameyso isagoo dhowr nooca waxtar waa yeelan laayihiin. intaa waxaa dheer oo ayadana aan meesha ka maqnayn xukuumadda Netanyahu waxay shacabka u arkaan 70% inaynan u adeegin danaha Israa'iil iyo mustaqbalka Israa'iil iyo amniga Israa'iil
waxa uu adeegayaa danihiisa gaarka ah inuu ka baaqsado dembiyada ka dhanka ah in lagu maxkamadayo. waxa uuna isku hadlaynayaa wasiirada xagjirka ee la socda dagaal joogto ah oo dhammaata ah in Israa'iil ay ku jirto waxaan ahayn uma furna. hanjabaadan uu jeedinayo ee la xiriirta dagaalka marka Gaza iyo marka Gaza magaalada Gaza ayaan qabsanaynaa ayaa khabiirada qaarkood warka ay soo saareen ayaa waxay tahay Gaza qabsashadeeda inay aad iyo aad u adag tahay. wararka ugu dambeeya ee warbaahinta ka akhrinayaan Israa'iiliyiintan waxa weeye 2 sano dagaal socda in Israa'iil ku guuleysan lahayd inay Hamas cabsi geliso ama ka adkaato ama magaalada Gaza kala wareegto. magaalada Gaza si hufan waxa uu maamula marinka Gaza dhan waxa si weyn u maamula ururka Hamas. hadda waxa la abaabulaya aragtiyo kale oo duwan oo la rabo in labaax dhagihiisa wadamo carbeed qoorta loo suro oo barnaamij gaar ah ka sameynay oo daawadayaasha ay ka dhageysan karaan barnaamijkeena caawa fiidka ama bari subaxii kuwa soo galaya. Hamas waxaad moodaa ballankii ahaa inaynan marna ka taqalusi doonin, yaraysanna doonin, kana bixi doonin wax danaha Falastiiniyiinta iyo mustaqbalka Falastiiniyiinta la xiriira. waxaana muuqata in hadda haddii dadka Falastiiniyiinta aragti laga qaadi lahaa sida khabiirada qaar hadal ku dhigayaan in ay dad badan oo Falastiiniyiin taageeri lahayn ururka Hamasna hadda waxa ay cadeysataba in aanan siba looga farmoojin karaynin ama diblomaasiyad ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama cunaqabateyn ha noqoto ama dagaal ha noqoto marinka Gaza. waa gartay waayo arrimaha dhanka bini'aadanimada shalay waxaynu ogeyn qaramada midoobay ku dhawaaqday in macluul ka jirto marinka Gaza laakiin Mareykanku waa beeninaya hay'adii UN-kan wuxuu ku tilmaamayaa hay'ad musuqmaasuqa. laakiin markaan eegno falaqaynta wargeysyada Israa'iil qaarkood waxay leeyihiin Netanyahu xukuumaddiisa waxaaba suurtagal ah in burbur uu soo gaaro dagaalka awgiis. wargeyskan Maarif maanta warbixintan uu qoray Maxamed bal hadda inoo falaqay maxay sheegaysaa warbixintu. Maarif sida ay hadalka u dhigayaan xukuumadda Israa'iil ayaa laga yaabaa in ay kala daato warbaahinta Israa'iil iyadoo howlgallada militariga ee marinka Gaza aynan jirin ayaa Netanyahu wuxuu awood u waayay inuu xukuumaddiisa isku hayo. dagaal kale intiis xukuumaddiisa iskuma hayn karo ayaa wargeysyada dhan qorayaan. waliba wargeyska Maarif ayaa waxa uu ku waramayaa isagoo ila soo xiganaya in Netanyahu uusan ku tala jirin in uu joojiyo howlgallada ka dhanka ah marinka Gaza ilaa iyo meesha ugu dambeysa. tanna waxaa barbar socda wadaxaajoodyada mustaqbalka ee uu faahfaahinta dheer ka bixiyay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka Steve Witkoff. hadda ururka Hamas way ogolaatay aragtidii uu soo jeediyay Witkoff laakiin Israa'iil ayaa diidanaya Netanyahu waxaana ka mid ah in la soo daayo maxaabiista ayagoo nool. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa dalabaad cusub sameynaya isagoo dagaalkeena ku adkaan la waxna aanan qaban karin ayuu dalabaad sameynaya. sida warbixinta ay xusayso sababaha militariga Israa'iil ay dagaalka weyn isugu diyaarinayaan ee marinka Gaza ka dhanka ah ayaa waxa ay tahay in la rabo in la isku soo abaabulo askar badan oo kayd ah ilaa ay bishii September labadeeda. intaa waxaa dheer sida khabiirada ay hadalka u dhigayaan waa jeedin weeye iyo in aanan marnaba u dagaalkan istaagin sida hadalka loo dhigayo. waa gartay waa yahay isla arrimahan intayna ka bixin dhinaca kalena dhibaato culus baa ka jirta marinka Gaza laakiin waxaa leeyahay Netanyahu wuxuu ogyahay inaysan cidna waxba ka qaadeen sidaas darteed ayuu arrintan ugu soconayaa. khibradu maxay ka tiri arrintan? Tamir Qarmuut oo professor cilmiga siyaasadda xiga ayaa waxa uu sheegayaa Israa'iil dagaalka marinka Gaza waxay rabtaa in uu socdo cunaqabateyntan waxay rabtaa inay sii socoto. dagaalkaasna ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa u baahan ma dareensana wax khatar inay kusoo food leedahay haba yaraatee
waxa uu khabiirkani sheegayaa marka khatar laga hadlayo waxaa loola jeedaa go'doomin caalami ah iyo cunaqabatayn Israa'iil laga qaadayo ma jirto sababtoo ah waxaa difaacaya diidmada qeexan ee waddanka Mareykanka uu la yuururo qaramada midoobay waa sidoo khabiirka hadalku dhigayo iyo awoodda iyo agabka military ee Mareykanka uu ku taageerayo Israa'iil waxaa sidoo kale uu sharaxaad ka bixiyay khabiirkan Qarmuud in ra'iisul wasaaraha Israa'iil bayaanada uu soo saarayo ee la xiriirta in Israa'iil weyn uu abuurayo waa ka baxsan dhulka Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah Jordan, Syria iyo Masar iyo in madaxweynaha Mareykanka uu sheegayo in ciidamadan xoog ku galaya marinka Gaza aynan difaacaynin dadka la haystayaasha ah arrintaana ay tahay mid walwalkeeda leh khatarteedana leh waxaana muuqata mashruuca weyn ee Israa'iil leedahay iyo in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu raqbad weyn u hayo inuu dagaalka noqdo mid ma dhamaata ah xasuuqa iyo inuu isku ballaariyo oo uu qabsado oo uu gumaysto siyaasad ah gobolka bariga dhexe arrintaasna dhibaato weyn ayay leedahay oo leeyahay khabiirkani waxaa intaas dheer oo ayadana aanan marnaba meesha ka maqnayn in Mareykanka iyo Israa'iil aynan ku kala fogeyn siyaasadahani oo waxyaabaha soo baxay waxaa ka mid ah in Mareykanka uu wax walba Israa'iil loo geeyo waa hagaag maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynayna caawa barnaamijkii daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadiino